markana aynu tagna dhanka iyo magaalada Gaalkacyo halkaas oo maxkamadda ku taal magaaladaasi dhinaca maamulka Puntland ay xukun dila ku riday 17 qof oo loo haystay in ay dad ku laayeen magaaladaasi Gaalkacyo iyagoo lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab hal nin oo kale oo dacwadeedkaasi ku helinay raggaasi ayaa isna lagu xukumay xabsi daa'in dadkan la xukumayna waxay noqonayaan eedeysanayaashii ugu badnaa oo maxkamadda ku taal Puntland ay mar qura dil ku xukunto Axmed Caawil ayaa faafahinta warkan goorweed ka soo diray magaalada Garowe raggan maanta lagu xukumay magaalada Gaalkacyo waxay gaarayaan ilaa 17 kamida ayaa dil toogasho lagu xukumay halka midka kale lagu xukumay xabsi daa'in waxay ku eedeysan yihiin in magaalada Gaalkacyo iyo guud ahaan Puntland ay ku laayeen dad aad u tiro badan al-shabaab ayay ku eedeysan yihiin raggan gaaraya ilaa 17 ruux waxaana la sheegay in magaalada Gaalkacyo iyo Puntland ay ku dileen ilaa dad gaaraya 300 oo qof oo dadkaasna waxa ku jira dad in deegaanada iyo waliba saraakiil ciidan oo maalmihii sanadadii aynu soo dhaafnay lagu dilay Gaalkacyo iyo meelo kale oo Puntland kamida 13 sano la soo dhaafay ayay ku eedeysnaayeen raggan inay dilalka ay ka fulin jireen Puntland gaar ahaan magaalada Gaalkacyo saraakiisha ciidamada Puntland iyo maxkamadda waxa ay sheegeen shabakadan in ay dhowr qaybood ay isku jireen oo ururka al-shabaab oo adeega isla markaasna ay dilal kala duwan ay ka geysan jireen Gaalkacyo waxaana la socotaan in Gaalkacyo lagu laayay dad badan oo deegaanada ahaa isla markaasna siyaabo kala duwan ay u sheegteen ururka al-shabaab marar badan hase yeeshee waxa muuqatay in maalmihii ugu dambeysay maxkamadda ciidamada qalabka sida ee gobolka Mudug ay soo bandhigaysay raggan al-shabaab ku eedeysan isla markaasna xukumadoodu ay u badnaayeen in dil lagu fuliyo marka waxay noqonaysaa tiradii ugu badneed oo guud ahaan Puntland mar qura la arko in dil toogasho lagu xukumo oo ururka al-shabaab ka tirsan